wacan oo wanaagsan dhammaantiinba saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada xilligan aan idiin hayana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh oo ay haysato laba daran mid dooro kadib jahwareer uu ka qaaday go'aanka rasmiga ah ee uu ka qaadanayo doorashada tooska ah xilli mucaaradka iyo saamileyda kale ee siyaasadda ay sii wadaan cadaadiska isaga ka dhanka haddaba go'aan nooce ah ayuu qaadan doonaa madaxweynaha xog la yaab leh oo laga helay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo kala diray isla markaana kala jibiyay siyaasiyiintii isaga mucaaradka ku ahaa Shariif Sakiin oo meel cidlaha looga tagay kadib markii ay ku boodeen xubno uu kamid yahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Mursal iyo lafta gareen oo mar kale ku dhow hogaaminta koonfur galbeed wararka kale waxaa kamid ah dowladda federaalka oo bilowday inay xabsiga ku gurto odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir ee ku hor yimid doorashada qof iyo codka ah ee laga qabanayo magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qalinka ku duugay go'aan Soomaalidii ugu badneed looga soo tarxiilayo dalkaasi Mareykanka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkan insha Allah fadlan daawada muuqaalka like saar oo si share garee like iyo subscribe tana hanaga ilaabin aad iyo aad u mahadsantihiin akhyaare soo dhawaada aynu ku bilowno wararkeena sida aad la socotaan xaaladda siyaasadeed ee dalka meel adag ay maraysaa welina dhinac uma aysan dhicin sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudaxileedkiisa ma uusan dhamaan waxaase madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dareemayaa culays siyaasadeed oo aad iyo aad u xoogan iyadoo lagu soo waramayo inay haystaan qodobo dhowr ah oo isbarkan kuwaas oo u baahan in go'aano uu ka qaato haddaba wararka aynu helayna waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh ay haystaan sheekooyinkii ahaa laba daran mid dooro taasi oo haddii uu tallaabooyinka qaar uu qaado u keeni kara jahwareer siyaasadeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaanan weli go'aan rasmi ah ka qaadanin doorashada tooska ah ee dalka laga qabanayo maadaama ay sii kordhayaan cadaadiska xubnaha mucaaradka ay ku hayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa u sii dheer madaxweynaha haddaba waxaa lagu soo waramayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu qaato la tashi dheer oo ku aadan sida uu ka yeelayo go'aanka ugu dambeeya ee uu markaasi qaadanayo ee la xiriira doorashooyinka qof iyo codka ah macluumaadyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynaha uu doonayo inuu ka digtoonaado in uu fududaado isla markaana uu doorashooyinka hal mar gudagalo isaga oo aanan ogeyn wax uga soo laaban kara 3 November doorashooyinka tooska ah iyo qorshuhu ahaa inay qabsoomaan laakiinse hadda wararka la helayo waxay tilmaamayaan in dib loo sii dhigayo madaxweynaha ayaana waxa aad ugu soo siyaadaya xubnaha ka sii tagayo maadaama in xaaladda wadanka ay tahay mid adag xubno horey uu ugu qanciyay inay dhankiisa noqdaan oo lagu soo xirigeliyay ballanqaadyo ayaanan weli markaasi loo fulinin ballanqaadyadoodii waxaana xubnahaasi kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid iyo xirtii uu watay si kastaba ha noqotee xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan sii dhamaanaya waana arimaha ugu daran ee madaxweynuhu uu ka walaacsan yahay haddii la gaaro sanadka cusub 2026 aad ayuu waqti ugu soo koobmaya madaxweynuhu wuxuuna ku qasbanaan doonaa inuu dhulka dhigo talada ama in uu mudaxileedka uu ka dhamaado oo uu talada dhulka dhigo aragtidaada daawadayaal waad inoo soo diri karaysaan qaybta hoose haatan aynu sii eegno wararkeena kale xogo la yaab leh ayaa waxaa laga helayaa in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu ku guuleystay in uu kala diro siyaasiyiintii waaweynaa ee isaga mucaaradka ku ahaa kadib markii uu meel cidla ah soo istaajiyay Shariif Sakiin isla markaana uu ka wato xubnihii muhiimka ahaa sida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay la leeyahay in Cabdicasiis lafta garan uu qaaday tallaabooyin uu ku muujinayo awoodiisa siyaasadeed iyo in uu doonayo in mar kale uu hogaamiyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Sakiin ayaa hadda dareemaya cidlo siyaasadeed waxaana la tilmaamay in xitaa uu ka heliyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe oo la saftay dhankaasi iyo lafta gareen iyo gudoomiye Mursal oo hadda markaasi iyagu isku dhinac noqday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbiga horumar iyo midnimo qaran qoraal kooban oo soo saaray ayuu sheegay in go'aankiisu uu yahay mid uu ku doonayo madax banaani buuxda oo ku aadan aragtidiisa siyaasadeed
mursal ayaa xisbigan uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif sakiin ka hayay xilka gudoomiye ku-xigeenka kaasi oo si rasmi ah u baneeyey sida uu shaaciyey arrinkana dhabarjab ayay ku tahay shariif sakiin sababtoo ah xisbiga uga baxay uu ku sheegay inay tahay sidii uu u heli lahaa madax banaani aragtidiisa siyaasadeed gaarka ah waxaana sidoo kale jirtaa warar ku saabsan in uu u tanaasulay madaxweynaha koonfur galbeed wararka lagu kalsoonaan karo waxay tilmaamayaan in gudoomiye mursal uu ka tanaasulay hankiisii ahaa in uu isku sharaxo xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana uu garabkiisa ka soo muuqan doonaa lafta gareen mursal ayaa si kastaba ha noqotee waxa uu sameeyey isbedelo siyaasadeed isagoo hadda doonayo in uu horay u sii ambaqaado isbedelada cusub ee ku soo kordhay siyaasadiisa iyo weliba sidoo kale noloshiisa si kastaba ha noqotee ninka la yiraahdo shariif sakiin ayaana la ogeyn go'aanada uu qaadan doono maadaama meel cidlo ah looga soo tegay haatanna ay iswataan lafta gareen aadan madoobe iyo sidoo kale gudoomiye mursal oo haatan xisbigaas amaba garabkaasi ku biiray horay taliyaha waa taliyaha ciidanka asluubta taliye mahadshub ayaa ahaa garabka lafta gareen inkasta oo uu sadog u yahay haddana waxay ka dhigan tahay arrimahani oo dhan in lafta gareen uu isbedel muuqdo sameeyey mar kaleetana kursigiisa uu difaacan karo haddii uusan duulaan weyn kala kulmin dhankaasi iyo dowladda federaalka ama villa Soomaaliya barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya aad la soconaysaa markana dowladda Soomaaliya ayaa bilowday inay xirxirto oo ay xabsiga u taxaabto nabadoonada waxgaradka iyo odayaasha beelaha hawiye ee markaasi diidan in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah waxaa xabsiga la dhigay nabadoonka ugu sareeya ee beesha murursade oo lagu magacaabo nabadoon Cabdirasaaq Nuur Xalane kaasi oo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo oo dhoofayay nabadoonkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u dhaliilayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu sheegay in beeshoodu aysan aqbali doonin waxa uu magaalada Muqdisho doonayo inuu ka sameeyo madaxweyne Xasan Sheekh ee doorashada qof iyo codka ah ninkan la yiraahdo Cabdirasaaq Nuur Xalane waxa uu sheegay in uu markaasi hore u sheegay in haba yaraatee beeshiisu iyo sidoo kale beelaha kale la midka ah marnaba aysan aqbali doonin arrimaha uu wado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya haddaba markii la xiray aad waxa arrinkan uga hadlay siyaasiyiinta mucaaradka oo ugu horeeya Xasan Cali Khayre oo nabadoonkiisu yahay waxaa sidoo kale ka hadlay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore waxaa sidoo kale ka hadlay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubnaha madasha samata bixinta mucaaradka iyaga oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay inay si degdeg ah u soo deeyso nabadoonkaas ay afduubatay sidii iyagu hadalkay u dhigeen waxayna sheegeen in dowladda Soomaaliya ay wado qorshayaal ay ku doonayso in ay ku beegsato dadka ka soo horjeeda aragtideeda ee markaasi ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya وهجاك برنامج كوركي وجودن بيد لا سعتان وجودن مدحينها Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qalinka ku duugay go'aan halis ku ah Soomaalida sharci la'aanta ah ee ku dhaqan ama ku nool wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota madaxweynaha Mareykanka ayaa saxiixay oo qalinka ku duugay in uu ka laabtay oo uu baabi'iyay sharcigii sida ku meel gaarka ahaa ay ugu ogolaanayay muwaadiniinta Soomaalida ee aanan haysanin sharciyada in la siiyo waraaqo ay wadanka ku joogi karaan oo aan wadanka looga ceerin karin laakiin arrinkaas ayuu gabi ahaanba ama sharcigaasi ayuu gabi ahaanba baabi'iyay Donald Trump waxaana uu sheegay inay tahay in la tarxiilo Soomaalida Minnesota ee sharci la'aanta halkaasi ku ah hagaag intaas ayaan saaxiibayaal qaybtan ku soo afmeeriyay nabadi